السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنالك مركز السود وهذا أدي هذا ومهتمتين عيد ونكسنا يا ند الله وحن فيلي صدق والله لما يستري بالري والجمعة عيد أيام لود بالدقية كل عام وأنتم بغير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال يا دمان تيم با إذن الله ميل كستو أو أتكو سونتين يولي ميل كستو أتكو عيديسان وقال كانوا حربا إن ندي كل وذاقو qaar ka mid ah Soomaalidii loo haystay kiiskii Feeding Our Future ee lacagtii 300 milyan oo dollar ah lagu xaday gobolka Minnesota oo lagu waday in maxkamadeyntooda ay bisha soo socota ay bilaabato dhamaadkeeda ayaa shalay qaarkood dambigooda qirtay qaarna waxay yiraahdeen maxkamad ayaan rabnaa in aan nala saaro halka sidoo kalena kuwa kale la filayo in ay bari dambigooda qirtaan dadkan dambigooda qirtay intooda badan waa isku qoys arrintaasi waan idinla wadaagaya waxayna ku soo beegatay xilli shalay aqalka wakiilada ee Kongareeska Mareykanka ay meel mariyeen sharci dhigaya qofkii ku kaca musuqmaasuq oo aan muwaadin Mareykan ahayn in la masaafurin karo oo lacagaha ceyrta xado waan idinla wadaagaya dowladda Mareykanka oo konton wadan oo u badan Afrikaan tiri qofkii doonaya inuu visa Mareykanka ku yimaado 15,000 oo lacag oo damaanad ah ayaa laga dhigaya arrintaasina waan idinla wadaagaya madaxweyne Trump oo maanta aqalka cad kula shirayay ra'iisul wasaaraha Japan ayaa wariye Japanese waxa uu weydiiyay su'aal la yaab leh sidii uu uga jawaabay Trump xitaa waxa ay ka careysiisay ra'iisul wasaaraha dalka Japan su'aashaasi maxay ahayd Trumpna sidoo uga jawaabay shalay iyo maanta guddiga sirdoonka ee Kongareeska Mareykanka waxay su'aalo weydiinayeen labada xubnood ee ugu sarreeya sirdoonka Mareykanka waa Tulsi Gabbard oo agaasimaha sirdoonka qaranka ah iyo sidoo kalena John Ratcliffe oo isaguna hay'adda dhexe ee sirdoonka Mareykanka hogaamiyo wax laga weydiinayay Iran qatar miyay ku ahayd Mareykanka ma waxay saqarka u saarnayd in ay hub nuclear samaysato arrimahaasi sidee uga jawaabeenna waan idinla wadaagaya balse iskii Feeding Our Future oo aan ognahay in musuqmaasuq fara badan haweeneydii cadaanka ahayd ee Soomaali fara badan sumaysay oo kiiskaasi lacaga fara badan Soomaali dacwada lagu soo oogay ayaa waxa jirtay ilaa iyo 7 qofood oo la filayay dacwadooda 20 bisha Abriil ee afraad ee soo socotay inay bilaabato 7 qof intooda badan isku qoys ayay ahaayeen marka shalay ayaa waxa dambigeeda qiratay Ikraan Yusuf Maxamed oo 43 jir ah iyada iyo ninkeeda oo la yiraahdo Shakuur Abdinuur Abdisalaam ayaa dambigooda qirtay haweeneydan Ikraam Yusuf Maxamed waxa ay la taliye u ahayd haweeneydii madaxda ka ahayd ururkii Feeding Our Future ee Amy Park isla markaana qoyskeeda inta badan ayay kiiskan lugaha u gelisay waa Ikraam waxa ku jira xubno ka tirsan qoyskeeda uu ka mid yahay walaalkeed Suleymaan Yusuf Maxamed iyo sidoo kalena Faadumo Maxamed Yusuf oo iyaduna sidoo kale ay walaalo ay yihiin waxa sidoo kale ku jirta hooyadeed oo la yiraahdo Sahra Shariif Cusmaan ayaga waxa la filayaa afar ka mid ah qoyskeeda berri oo jimcaha inay dambigooda qirtaan laakiin Ikraam iyo ninkeeda ayaa dambigooda qirtay in maalnimadii shalay ahayd laakiin Gandhi Yusuf Maxamed oo 45 jir ah sidoo kalena loo yaqaano Gandhi Cabdi Kidiye ayaa isagu waxa uu diiday inuu dambigiisa qirto waxana uu yiri maxkamad ayaan doonayaa in la isaaro xitaa garsooraha Nancy Brasser waxa ay shalay u soo bandhigtay hadii dambigiisa uu qirto in lagu xukumi doono 27 bilood ilaa iyo 33 bilood oo xabsi ah laakiin waxa uu yiri maxkamadda ayaa rabaa in la isaaro garsooruhuna waxay tiri 20 bisha soo socota ayaa ballan noo ah in maxkamadda lagu saaro marka waxa lagu eedeynayaa qoyskan 14.7 milyan oo dollar oo lacag ah in ay ku maqan tahay marka Ikraam waxa ay qoyskeeda soo gelisay arrintan maadaama la taliye ay Amy Park u ahayd iyada ayaa qoyskeeda qoratay isla markaana soo gelisay kiiskan xitaa waxa waa haweeneydii sida qarsoodi ah u doogtay xeerlaalaha guud ee gobolka Minnesota Keith Allison markii ay uga dacwoonayeen lacag waxa jirta sanadkii 2021 in Feeding Our Future lacagtii laga xiray markii musuqmaasuq lagu helay marka waxay u tageen xeerlaalaha iyagoo dhahaya waxa lagu faquuqayaa midabkeena iyo madowgeena iyo inaan Soomaalinahay marka codkiisa ay si qarsoodi ah u duubtay isagoo la hadlayo haweeneydii duubtay marka Ikraam maadaama dambigeeda ay qiratay waxa sidoo kale lagu eedeynaya lacagtii la siiyay xeer beegtida la doonayay in la siiyo in qofka soo ururiye ahayd marka waxa ay dacwadoogayaashu u ballan qaadeen in hadii dambigan ay qirato midkaasi kale aan lagu soo oogi doonin oo arrinta laaluushka lacagta ay soo ururisay marka dambigeeda ay sidaas ku qiratay waxa la leeyahay waxa lagu xukumi karaa 6 sano ilaa iyo 10 sano inta u dhaxaysa marka waqtiga la xukumayana sidoo kalena ma uusan sheegin in garsooraha marka lacaga kickback ayay bixi jirtay lacaga fara badan ayay meelo kala duwan u dirtay si ay u qariso ku lug lahaanshaheeda kiiskan Feeding Our Future
haddaba sidoo kale iyada keligeed waxaa gaar ahaan loogu eedeynaya ikraan ay sheegtay weliba qiratay in 1.3 milyan ay jeeb ka gashatay iyadoo sidoo kalena lagu eedeynayo xubnaha kale ee qoyskeeda ee la eedeysan lacag ka badan 12 milyan oo dollar in ay qaateen marka lacagahaasi waxaa laleeyahay 15 boqolkiiba feeding our future ayay siin jireen waxaa laleeyahay walaasheed iyo sidoo kale walaalkeed hooyadeed iyo qof saaxiib la ah ayaa lagu eedeynaya 12 milyan oo dollar inay qaateen ninkeeda Shakuur Cabdisalaan waxaa lagu amray isaga 10 bilood ayaa laga yaabaa xabsiga in lagu xukumo waxaana lagu amray in 475 kun oo dollar uu dawladda u soo celiyo ikraam iyaduna waxay ogolaatay 1.3 milyan oo dollar inay dawladda u soo celiso marka ilaa iyo 60 qof ayaa ilaa hadda ama dambi lagu helay oo la xukumay ama dambigooda qirtay kiiskii feeding our future waxa sidoo kale uu ku soo beegmay kiiskan xilli maalnimadii shalay ahayd aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka ay meel mariyeen dadka ku kaca musuqmaasuq dhinaca lacagaha ceyrta ah ee dadka tabarta daran la siiyo in wadanka laga masaafurin karo 231 xubnood ayaa u codeysay 186 waa ay diideen Republicanku waxa ay sheegeen in laga maarmaan ay tahay in la xaqiijiyo dadka muwaadiniinta Mareykanka ahayn ee xada lacagta canshuur bixiyaasha Mareykanka in aysan u qalmin in immigrationka adeeg immigration ay helaan isla markaana aan laga difaacin in wadanka laga masaafuriyo laakiin dimuqraadiyiinta oo sharcigan ka soo horjeestay waxa ay yiraahdeen sharcigan horey ayuuba u jiray qofku haddii uusan muwaadin Mareykan ahayn oo musuqmaasuq dhinaca ceyrta uu ku kaco ama nooc waliba waa la masaafurin jiray marka waa laga maarmaan oo sharcigan sharci loo baahan yahay maba ahan dhinaca kale dawladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in looga baahan yahay lacag damaanada oo 15 kun oo dollar ah ilaa iyo 50 wadan dadka ka imaanaya oo doonaya Mareykanka inay yimaadaan dadkan ma ahan dadkii dadkooda waxaas ay u dacwoonayeen waa dadka doonaya ama qaab shaqo ama ay ku imaadaan dalxiis oo kale ama sidoo kalena ay ku yimaadaan booqasho saas dadka ku imaanaya way marka 12 wadan oo cusub ayaa hadda dawladda Mareykanku ay ku soo dartay hore 38 ayay ugu soo rogtay wadamadan 29 kamid ah waa wadamo Afrikaan ah 50 wadan oo 15 kun oo damaanada ah laga doonayo in qofku uu dhigo marka lacagtaasi qofka waxa loo celinaya marka inta Mareykanku uu yimaado waqtigii loogu talagalay uu ku laabto wadankii uu ka yimid lacagtiisa waa la siinaya amaba uu go'aansadaba in uusan soo safrin markii visa la siiyay kadib uu iska joogo lacagtiisa waa loo celinaya laakiin qofkii overstay sameeyo oo viisihiisa markii uu ka dhacay kadib wadanka Mareykanka sii joogo lacagtaasi way ka dhimanaysaa waana la masaafurinaya wadamada marka hadda gadaal looga soo diray oo 12 ah ayaa waxay kala yihiin Cambodia Ethiopia Georgia, Grenada, Lesotho, Mauritius, Mongolia, Mozambique, Nigeria, Papua New Guinea, Seychelles, Tunisia ayaa wadamadaasi ay yihiin sidoo kale wadamada kale ee horey loogu soo rogay arintan ayaa waxa ay kala yihiin oo viisaha 15 kuna lagu soo rogay wadamo aad u fara badan wadamadaasina waxa kamid ah Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burundi, Cape Verde, Central African Republic, Ivory Coast, Cuba, Djibouti, Dominica waxa ku jirta sidoo kalena Fiji, Gabon, Guinea Bissau ayaa ku jirta Kyrgyzstan, Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal sidoo kalena waxa kamid ah Nicaragua, Sao Tome and Principe ayaa kamid ah Senegal, Turkmenistan ayaa kamid ah sidoo kale waxa kamid ah Tanzania, Togo ayaa kamid ah Tonga ayaa kamid ah Turkmenistan ayaa kamid ah Tuvalu ayaa kamid ah Uganda ayaa kamid ah Vanuatu, Venezuela, Zambia iyo sidoo kale Zimbabwe kuwaasna 38 wadan ayay ahayn marka waxa laga doonayaa 15 kun oo damaanada inaad bixiso inta aadan Mareykanka iman dad fara badan waxay soo weydiinayaan arrintii fiisayaasha iyo qaxootiga war wadanku dagaal uu ku jira Mareykanka dawladdu hadda waxa sabab u soo jeedaba marka arrintaasi weli sidii Trump uu hakad u galiyay ama dadka isku dacwoonayo fiisayaasha qabiis dhalay ilmahooda u dacwoonayay ama sidoo kale qaxootiga arrintaas sidii baws loo galiyay ayay weli ugu jirtaa ugu dambeyntii shalay iyo maanta waxa xubnaha guddiga sirdoonka ee Congress-ka Mareykanka ay su'aalo weydiinayeen waxa la yiraahdo intelligence community-ga dawladda Mareykanka hay'adaha u qaabilsan dhinaca sirdoonka arrimaha Iran ayaa wax laga weydiinayay su'aalaha la weydiinayay waxa kamid ahaa Iran ma qatar degdeg ah ay ku ahayd Mareykanka mise waxay qarka u saarnayd amaba nuclear ay yeelato ay qarka u saarnayd marka Tulsi Gabbard oo hay'adda sirdoonka qaranka madax ka ah iyo sidoo kale John Ratcliffe oo isaguna hay'adda dhexe ee sirdoonka madax ka ayaa su'aalahan inta badan la weydiinayay marka waxa ay ku jawaabeen Tulsi Gabbard horta waxa laga yaabaa Trump inuu xilka ka qaado dimuqraadi ay ahaan jirtay oo lihiisi ay taageertay Republican ay isku bedeshay xil ayuu u dhiibay marka shalay waxyaabaha ay tiri waxa kamid ahaa
in Iran aysan qatar degdega ku ahayn Mareykanka marka waxa ay yiraahdeen madaxweynaha ayaa wuxuu yahay qofka go'aanka ka gaari kara in Iran qatar degdega ay ku tahay Mareykanka iyo in kale marka su'aalaha la weydiinaya waxa kamid ah haddii Iran ay qarka u saarneyd in bilo amaba toddobaad gudahood nuclear ay ku samaysato aan tiraadeen madaxweynaha ayaa go'aankaas iska leh adinka shaqadiinu maxay tahay marka maxaad qabanaysaan adinkoo madax ka ah sirdoonkii Mareykanka haddii aad leedihiin madaxweynaha kaliya ayuu go'aan kaari karaa adinka waxyaabaha ay qadanaysaan maxaa kamid ah marka bal xildhibaan ka tirsan Congress-ka oo su'aalahaasi weydiinaya bal isla markaana Tulsi Gabbard ay leedahay madaxweynaha ayaa go'aankaasi gaari kara bal wax yar la daawado. The American people need to know if this was an imminent threat or not, if they're weeks away or not, if they're months away or not. None of this dodging. Were they an imminent threat? Yesterday you said that only the president, the only person who can determine what is an imminent threat is the president of the United States. Do you stand by that statement? Yes, I do. That if the president can determine and ignore what you're doing, why do you guys even have a job? dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa maanta aqalka cad waxa uu ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Japan haweeneyda la yiraahdo Sanai Takagi oo ah haweeneydii ugu horeysay ra'iisul wasaare ka noqotay dalka Japan Trump waa kii booqday markii uu xilka la wareegay isla markaana booqashadeedu waxay ku soo beegantay xilli Japan ay kamid ahayd wadamada isbahaysiga NATO ee diiday in ay Mareykanka la sugaan gacanka Hormuz markii ayagoo Oval Office-ka ku shiraya ayaa wariye Japanese waxa uu weydiiyay madaxweyne Trump inta aadan dagaalkan qaadin maxaad xulufadaada ugu sheegi waysay qorshayaashaada isla markaana aad kadis uga dhigtay Trump marka qaabka uga jawaabay xitaa ra'iisul wasaaraha Japan ayay ka naxisay mar Trump ayay fiirisaa mar wariyihii weydiiyay ayay fiirisaa mar faruuryaha ayay qaniintaa mar gacmaha ayay xoog isugu qabataa marka bal ila fiiriya dhaqdhaqaaqa ay sameynayso sida Trump iyo wariyaha ay u fiirinayso Trump marka waxa uu ku jawaabay ma doonaynin in aan horay ugu sii sheegno maxaa yeelay hadda waxa aan qabanay ma aanan qaban lahayn labadii maalmood ugu horeeyay waxa uu yiri inta badan 50% awoodii Iran ayaan meesha dhignay laakiin waxa uu yiri bal yaa hadda surprise ama la yaab noo sheegaya bal Japan hala weydiiyay arrintaasi Japan waxa jirtay in weerar gaadmaha Mareykanka ay ku soo qaaday bishii December ee sanadkii 1941 saldhig ciidamada Mareykanka uu ku lahaa Hawaii gaar ahaan Pearl Harbor taasi oo sababtay in Mareykanku uu galo dagaalkii labaad ee adduunka marka wuxuu yiri bal adigu ii sheeg surprise-ka ama la yaabka hadda aad ii sheegayso maxaad ma wax iiga sheegtay arrintii Pearl Harbor oo Japan ayna soo gaadeen sanadkii 1941 marka sidaasi ayuu Trump uga jawaabay uu ka nixiyay dhamaanba wariyaashii madaxdii meesha joogtay oo ra'iisul wasaaraha Japan uu kamid ahaa waa uu ka nixiyay markii jawaabtaasi uu bixiyay bal Trump sida uga jawaabay su'aashii la weydiiyay bal wax yar ila daawada iyo sida ra'iisul wasaaraha body language ay sameynayso One thing you don't want to signal too much, you know, when we go in, we went in very hard and we didn't tell anybody about it because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Okay? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? Right? You know, he's asking me, do you believe in surprise? I think much more so than us. And we had to surprise him, and we did. And because of that surprise, we knocked out, the first 2 days, we probably knocked out 50% of what and much more than we anticipated doing. So, if I go and tell everybody about it, there's no longer a surprise, right? aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan markale kulmi doono nabadgelyo